maalin kadib markii uu ka soo baxay isbitaalka militariga ee wadankaasi ee uu ku jiray madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump kaasi oo looga daweynaya xanuunka COVID-19 ayuu madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay in kadib markii uu ka soo baxay maalin waxay isbitaalka ee uu ku jiray militariga ee wadankaasi madaxweynaha wadanka Mareykanka Twitter-ka ayuu madaxweyne Donald Trump ku sheegay in uu dowrayo ka qaybgalka dooda 15 bishan ka dhici doonta magaalada Miami ee gobolka Florida taasi oo uu ku tilmaamay in ay noqon doonto mid weyn. Trump ayaa khamiistii hore ku dhawaaqay in uu haleelay cudurka COVID-19 ee keena waa fayraska corona ee keena xanuunka COVID-19. Jimcihii ayaa loo qaaday isbitaalka Walter Reed ee duleedka magaalada Washington. hase yeeshee isniintii ayuu ka soo baxay kadib markii ay dhakhaatiirtu sheegeen in uu wanaagsan yahay. ururka soo qaban qaabiya doodaha madaxtinimada wadanka Mareykanka ay madaxdu yeeshaan ama musharaxnimada ma aysan weli ka hadlin hadalka ka soo yeeray madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump kaasi oo la xiriira inuu ka qayb gali doono dooda adag ee dhexmari doonta ama qaybteeda labaad doodaha la filayo saddexda ee la filayo inay dhexmaraan Joe Biden iyo madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump. hadalka ka soo baxay madaxweynaha wadanka Mareykanka waxa sheegay oo ka hor yimid Joe Biden oo isagu sheegay in aysan munaasab ahayn, sheegayna haddii uu Donald Trump xanuunka COVID-19 wali qabo in uusan dood ka qayb gali karin banaankana u soo bixi karin bulshada iyuuna waliba wuxuu ku daray inuusan bulshada soo dhaxgelin oo uu ka joogo gurigiisa iyo halka uu ku sugan yahay. dhanka kaleeto waxaa jira qaar ka mid ah saraakiisha dhinaca caafimaadka iyo sidoo kaleeto khubarada wadanka Mareykanka oo ka dayrinaya xaaladda ayidayna hadalka Joe Biden. taliska u sareeya ciidamada qalabka sida ee wadanka Mareykanka ayaa iyagana waxa la sheegay inuu ku dhacay in ay xanuunka COVID-19 iyada oo la sheegay qaarkood inay si iskooda isu karantiileen kadib markii sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada xeebaha laga helay xanuunka COVID-19. war ka soo baxay waaxda difaaca ee wadanka Mareykanka ayaa lagu sheegay in taliyaasha iskarantiile ay ka mid yihiin taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Mike Milley iyo waliba ku-xigeenkiisa John Hite, kuwaasi oo la sheegay in ay dhammaantood cabsi qabaan. saraakiishan iyo qaar kale oo ka mid ah taliska ayaa dhawaan xarunta waaxda difaaca ee Pentagon-ka kula kulmay taliya ku-xigeenka ciidamada ilaalada xeebaha wadanka Mareykanka Charles Ray, kaas oo habeenkii ay talaadadu soo galaysay xanuunka COVID-19 laga helay sida ay shaaciyeen ciidamadu. afayeen u hadlay Pentagon-ka Mareykanka ayaa waxa uu isaguna sheegay waa ninka lagu magacaabo Jonathan Hoover ayaa waxa uu sheegay in ay taliyaasha ciidanka qalabka sida ee wadanka Mareykanka laga qaaday talaadadii shalay ahayd tijaabada caafimaadka balse laga waayay xanuunka coronavirus. waa sida uu isagu sheegay Hoffman. dhanka kaleeto Stephen Miller oo ka mid ah taliyaasha madaxweynaha wadanka Mareykanka kuwa ugu sareeya sidoo kale tana ah nin ay dilootay cunsurinimo xagjir weyn ah marka loo fiiriyo dhinaca dadka soo galootiga ayaa isagana xanuunka COVID-19 laga helay. qaar ka mid ah madaxda aqalka Mareykanka oo ay ka mid yihiin la taliyaasha aqalka cad ee madaxweyne Donald Trump ayaa maalmihii u dambeeyay xanuunka COVID-19 laga helayay, taasi oo muuqata in xanuunka COVID-19 uu aqalka cad biyo dhigay sidoo kale tan xarunta Pentagon-ka ee wadanka Mareykanka ayuu saameeyay. taliyaasha ciidamada wadanka militariga waa Mareykanka ee militariga ayaa dhammaantood iskarantiilay iyaga oo ka cabsi qaba xanuunka maadaama ay kulamo kala duwan yeesheen mar walbana ay meelo kala duwan ku kulmayeen rag laga helay xanuunka COVID-19 ay kulamo la yeesheen in iyaga laftooda xanuunkani uu ku dhici karo. waxa ayna hadda ku jiraan xaalad karantiila. taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka ayaa isaga 5 maalmood ee la soo dhaafayba karantiil ku jiray, inkasta oo la sheegay in sida uu sheegay Hoffman aan laga helin xanuunka COVID-19 laakiin arintaasi ayaan ahayn mid la xaqiijiyay
oo ka soo baxday dhinaca isbitaalada dhinaca militariga uu ka mid yahay isbitaalka Walter Reed ee madaxweynaha wadanka Mareykanka uu maalmihii la soo dhaafay ku jiray kaasi oo ay si gooni ah u leeyihiin ciidamada Mareykanka ee militariga. sidoo kale xanuunka COVID-19 saraakiil kala duwan ayaa laga helayaa kuwaasi oo kamida madaxda ugu sareysa aqalka cad ee wadanka Mareykanka ee taliyaha la sheegay in xanuunka COVID-19 laga helay haweeneydiisa oo ah afayeenka madaxweyne ku-xigeenka wadanka Mareykanka ayaa iyada horaan looga helay inkasta oo la sheegay inay hadda xanuunkaasi ka soo kabatay oo ay ka bogsatay. Abdi ninkii Donald Trump ahaa raggii asxaabtiisa ahayd ee ku hareereysnaa muddo Trump wuxuu lahaa warmay ka daayo war ma jiro war waa sidan maanta waxaad moodaa in hadalhaynta dhinaca shacabka ay soo gaabanayso la leeyahay la taliya Trump baa laga helay afayeen dhinaca laga helay taliyihii militariga laga helay taliya kamid ah ciidamada badda laga helay hawshii ay iyaga ku meereysanayso. ma dhihi karaa fudaydsigii madaxweyne Donald Trump xanuunka COVID-19 fudaydsaday abaalkiisii waa u hayaa maanta horta aad iyo aadna wuu madax adag yahay oo ma aragtay haddii aad fiirisid wararka qaar ayaa waxay sheegayeen horta ninka waa nin aad u muran badan oo wuxuu isaga go'aansado baa soconaya caadi ahaanna mootay qofka markuu degan yahay uu ixtiraam leeyahay baa wada shaqayn ma aragtay wacan ay dadka ma aragtay dhexmari kartaa isaga dadka example haddii aad fiirisid inta badan security detail ama dadka ilaaliyo madaxweynaha Mareykanka waxa weeyaan saameyn weyn bay ku leeyihiin socdaalkiisa iyo meelaha uu mari karo marmar dhif baa waxa iska jirta in uu madaxweynaha go'aansado waa loo sheegaa RTN baan aadayna albaabkaas aad ka gali doonta albaabkaasna waad ka soo bixi doontaa bilmathala example ahaan aan soo qaadano Barack Obama markuu madaxweynaha ahaa Kenya markuu imaaday Kasarani ayuu khudbad dheer ka jeediyay laakiin si kedis ah ayaa wuxuu soo dhaxgalay shacabkii Kenyaanka oo aad iyo aad u rabay inay xitaa salaamaan marka taasi waxay oo arkaan wiilkoodii waakay marka culays weyn bay ku noqotay security detailka soo gartama maysan ku jirin programka inuu dhinacaas u bixi doono meeshuu ka soo galay bay ahayd inuu ku laabto inuu meesha loogu talagalay fariisto taasi waa mid بالمثل هدي أد فيرسد حتى أفلام توضع وحجر فيلم عن أو سجاشميدي مرسو بحي Air Force One بالديجرة وحامت لي هاريسون فورد أو مدحوينها أمريكان كا مركا حلي وروش كسو دولاي ديارة مركو سا أصو قلي نين ديارة كشقيناي أو كمد أمارتي وفدي مدحوينها على السعودية وحيري مدح ما بايلوت كيسو أها مدحوين حقين أدنا بابيدوس ما أدنا مركا بابيدوس وأمل ماركتي جزيرة أو يدتكو راحستان مركا سحويري وهدان أوداس لحان لها وهدان أوداس لحان لها بمعنى ماشا وحا كفهميسا انت بدن مركي سعودال كيسا دد بدن أيوقف كان لا تشادا سعقر تما نو مستر بريزيدنت حدرتن صوماليا ما أذكرتد وهي صوماليا ابن نوعس أياجرا you cannot go مركا قفك موتي مركو دقين دد كيسا ودقيسانا مركا واتسويري كرتا Trump iyo waxyaabaha isaga laga sheego iyo inta qof isaga la soo shaqeeyay oo ay kala weecdeen ha noqdo John Bolton ha noqdo maaragtay a lot of people marka waxa laga yaabaa no hadii ayna saan noqonaynin shaqadan ka tiraaya ama ani adiga waan isu fadhiina marka qofkan shakhsi ahaan wuxuu dhigi karaa war madaxweynaha haduu saan u hadlaayo walaalo maxaan sameeyaa bal aan ka gaabsado waayahay cabdi aad baad maasantahay sheekadaasi intaas ayaan kaga gudbaynaa